nidaamka xukun waa habka ama qaabka ay dawlad u maamusho dal una gaarto go'aanada muhiimka ah waana sida awoodda siyaasadeed loo qaybsado ama loo adeegsado dalalka caalamka waa ay ku kala duwan yihiin nidaamka xukun qaarkood ayaana isku dhafa oo ku dhaqma nidaamyo kala duwan waxayna nidaamyada qaar wadaagaan arrimo ay ka siman yihiin haddaba si guud ayaan u xuseynaa nidaamyada xukun ee dunida ka jira dimuqraadiyad ama democracy waa mid ka mid ah nidaamyada ugu caansan casriga waana nidaam xukun oo dadka shacabka ah ay go'aano ku yeeshaan maamulka dalkooda magaca democracy wuxuu ka yimid ereyo Greek ah oo kala ah demos oo dadka loola jeedo iyo kratos oo macna ahaan ah awood sidaas daraaddeed magaca nidaamkan waa mid ka turjumaya ama loola jeedo awoodda dadku waxay doortaan cidda ay rabaan inay dalka maamusho sida madaxweynaha baarlamaanka ama golayaasha deegaanka nidaamkan wuxuu qeexayaa inay dadku cabiri karaan fikirkooda dhaliili karaan dawladda laakiin xorriyadda uu nidaamkan sheegto dood badan ayaa dul hoganaysa waxaana lagu eedeeyaa inuu fuliyo danaha galbeedka tusaale wuxuu ku baaqayaa inay haweenka Iiraan xaq u leeyihiin inay xijaabka tuuraan halka uu caburinayo xorriyadoodana u diidayo haweenka Faransiiska ee doonaya inay xijaabka xirtaan nidaamka dimuqraadiga wuxuu leeyahay laba nooc oo kala ah dimuqraadiyad toos ah iyo dimuqraadiyad wakiil ah dimuqraadiyadda tooska ah dadka ayaa si toos ah uga qayb qaata go'aanada siyaasadeed arrin kasta oo muhiim ahna waxaa loo qabtaa afti guud sida Switzerland dimuqraadiyadda dadban ama wakiilka ahna shacabka waxay doortaan wakiilo matala sida baarlamaanka oo go'aamiya arrimaha masiiriga dawladdana waxaa hogaamiya madaxweyne ama ra'iisul wasaare dalalka nidaamkan dimuqraadiga ku caanamaala waxaa ka mid ah Mareykanka India Kenya iyo France nidaamka labaad waa boqortooyo waa nidaam kale oo ka jira dalalka qaar waana nidaam xukun oo madaxda ugu sarreeya ee dalka ay yihiin boqor ama boqorad waana kuwa dhaxla kursiga waa nidaam soo jireen ah waana mid ka mid ah nidaamyada ugu faaca weyn taariikhda aadanaha sida uu u shaqeeyana waa in qofka boqorka uu yahay madaxa dalka maamulkiisuna wuxuu ku saleysan yahay dhaqan iyo dhaxal halka mararka qaarna dastuuri uu yahay nidaamka boqortooyada laba nooc ayuu leeyahay oo kala ah boqortooyo dastuuri ah iyo boqortooyo kaligitalisa boqortooyada dastuuriga ah boqorka ama boqoradda ma lahan awood maamul oo dhab ah ee waa astaan qaran oo kaliya awoodda dhabta ahna waxay hoos tagtaa baarlamaanka iyo xukuumadda dalalka nidaamka boqortooyo ee dastuuriga ah lehna waxaa laga xusi karaa UK Sweden Norway iyo Japan dalka Japan waa midka ay ka jirto boqortooyada ugu da'da weyn dunida wuxuuna asaaskeedu u laabanayaa 660 sano ka hor taariikhda miilaadiga nooca labaad waa boqortooyo buuxda ama kalitalisa boqorka ayaa haysta awoodda ugu sareysa ee dalka isaga ayaana go'aaminaya oo hagaya dawladnimada boqorka ayaa magacaaba wasiirada loomana baahna doorasho dadweyne mana jiro baarlamaan madax bannaan dalalka nidaamkan haystana waxaa laga xusi karaa Sacuudiga Cumaan iyo Brunei waxayna dalalka nidaamkan haysta inta badan ku naaloodaan xasilooni siyaasadeed kaligitalisnimo waa nidaam xukun oo hal qof ama koox yar ay dalka si buuxda u maamusho yacni hal qof ayaa wax walba sheegta cidnana kama hor imaan karto dalka uu nidaamkan ka jiro lagama ogola xisbiyo iyo mucaarad toona shacabkuna wax doorasho la dhaho laguma soo hadal qaado ama mid qiyaali ah ayaa loo hal abuuraa hogaamiyaha ayaa leh awoodda ugu sareysa wuu magacaabaa wuu xiraa wuu mamnuucaa wuuna dilaa cidda uu khatar u arko tiirarka uu nidaamkan ku taagan yahayna waa cabsigelin iyo cagajugleen waana lagama maarmaan inay jiraan xabsiyo adag iyo goobo qarsoon oo dadka lagu jirto dalalka uu nidaamkan weli ka jiro waxaa ka mid ah waqooyiga Kuuriya iyo Eritrea saddex nooc ayuu leeyahay nidaamkan oo kala ah kaligitalis military kaligitalis raid ah iyo kaligitalis nidaamsan nidaamka kaligitaliska military wuxuu xukunka gacanta ugu jiraa militariga ama ciidamada qalabka sida taliya ciidan ayaana dalka xoog ku qabsada kaligitaliska raidka ah waa nidaam uu maamulo qof aan ciidan ahayn balse si siyaasadeedsan oo xoog ah xukunka u qabsaday wuxuuna isku magacaabaa madaxweyne ama hogaamiye kaligitalis nidaamsan waa nidaam dalka u xukuma xisbi ahaan hal xisbi oo kaliya ayuuna ogol yahay xisbigaas kaliya ayaana dalka ka taliya shuuciyad waa nidaam dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo sheegta in dhammaan hantida warshadaha dhulka iyo adeegyada ay yihiin hanti guud oo dadku wada leeyahay halkii ay dad gaar ah lahaan lahaayeen
dowladda ama xisbiga shuuciga ah ayaana gacanta ku haya dhammaan wax soo saarka, adeegyada, warshadaha, dhulka iyo wixii la mid ah. dadka looma ogolaan lahaanshiyo gaar ah ee wax walba waa hanti qaran. mushaarka, waxbarashada, daryeelka caafimaadka iyo shaqada waxaa bixisa dowladda, wuxuuna dalku leeyahay xal xisbi. shuuciyadda waa laba nooc oo kala ah: shuuciyad buuxda oo ah nooca taageera fikirka Karl Marx oo ahaa nin Jarmal ah oo falsafad yaqaan ah, taariikhyahan ah, dhaqaale yaqaan ah, isla markaana qoraa ah. waana aabbaha fikirka shuuciyadda, wuxuuna noolaa intii u dhaxaysay 1818 ilaa 1883. wuxuu rumaysnaa in taariikhda bini'aadamka ay ku dhisan tahay dagaal u dhaxeeya saboolka iyo taajirka. dadka shaqeeya wuxuu u arkayay inay yihiin kuwa dhabta ah ee wax soo saara, balse aan la siinin xaqooda, halka taajiriintuna ay ka faa'iidaystaan shaqada dadka saboolka ah iyagoo oo weliba siiya mushaar yar. haddaba nooca koowaad ee nidaamka shuuciga wuxuu isku tilmaamaa inuu u taagan yahay in qof walba helo waxa uu u baahan yahay, isla markaana qofkaasi uu bixiyo wixii uu awoodo. nooca labaad waa shuuciyad dowladeed, waana in dalka ay xukunto dowlad adag oo shuuci ah, sida dowladdii Midowgii Sofiyeed oo ahayd midii ugu horeysay si rasmi ah u hirgelisa nidaamka shuuciga. dowladda haatan jirta ee Shiinaha iyaduna waxay isku tilmaamtaa shuuci, inkastoo dad badan ay ku doodaan inuusan Shiinuhu shuuci dhab ah ahayn. nidaamyada kale ee dunida ka jira waxaa ka mid ah mid diineed. waa nidaam dowladeed oo diintu tahay tan ugu sareysa, hogaamiyaashuna yihiin wadaaddo ama culimo. kutubta diinta ayaana ah halka sharciga dalka laga soo xiganayo. diinta ayaa ah sharciga, mana jiro dastuur dadku qorteen. dalalka nidaamkan diineed haystana waxaa ka mid ah Afghanistan oo nidaamkan u xubsiibatay kadib markii ay Taliban la wareegtay 2021. sidoo kale dalka dunida ugu yar ee Vaticanka waxaa lagu tiriyaa dalalka nidaamkan diineed hoostaga, waana xarunta rasmiga ah ee kaniisadda Kaatooliga ee adduunka. waxaa si buuxda u xukumaa baadariga Pope-ka, kaasoo haysta awoodda ugu sareysa ee diimeed, siyaasadeed iyo maamul ee Vaticanka. waxaa la doortaa Pope-ka markii uu geeriyoodo kii hore ama iscasilo, waxaana doortaa golo diimeed. dhulkan yar ee magaalada Rome ku dhex yaala ee dalka lagu tilmaamo wuxuu leeyahay ciidan kooban oo ilaalo ah oo loo yaqaan Swiss Guard, waana kuwo ku labistaa dhar taariikhi ah. Iiraan iyo Sacuudiga waxaa lagu tiriyaa mararka qaar dalalka nidaamka diineed haysta, laakiin si buuxda uma aha oo Sacuudiga awoodda ugu weyn waxaa leh boqortooyada, halka dalka Iiraan uu nidaamka diineed ku lamaaniyo qaar ka mid ah nidaamyada kale ee dowladnimada sida doorashooyin iyo baarlamaan. laakiin awoodda ugu sareysa ee dalka ma lahan madaxweynaha ee waxaa leh wadaadka Ayatollah, kaasoo go'aanka ugu dambeeya gaara. nidaamka federaalka waa nidaam dowladeed oo awoodda lagu qaybsado laba heer: dowladda dhexe iyo dowladaha hoos yimaada sida maamul goboleedyada. dalku waa mid, laakiin wuxuu ka kooban yahay qeybo ama gobollo madax bannaan oo sharci u gaar ah leh, laakiin weli hoos yimaada dowladda dhexe. dowladda dhexe waxay ka mas'uul tahay arrimaha guud ee qaranka sida siyaasadda arrimaha dibadda, militariga, lacagta qaranka, difaaca iyo dastuurka guud. maamulada hoos yimaada dowladda dhexe waxay sameystaan sharciyo u gaar ah oo la xiriira waxbarashada, caafimaadka, booliska gudaha iyo maamulka degmo. dalalka ugu caansan ee ku dhaqma nidaamka federaalka waxaa ka mid ah Mareykanka, Jarmalka, Itoobiya, Nigeria iyo India. noocyada nidaamka federaalka waa ilaa 3 oo kala ah: federaal dastuuri ah oo dalku wuxuu leeyahay dastuur adag oo qeexaya awoodda dowladda dhexe iyo tan gobolada. nooca labaad waa federaal qowmiyadeed oo qaybaha ama dowlad goboleedyadu waxaa lagu dhisaa hab qowmiyadeed ama luuqad sida Itoobiya. nooca saddexaad waa federaal dhexdhexaad ah, dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada awood siman oo dheelitiran ayay leeyihiin, sida nidaamka ka jira Switzerland. dalka Switzerland wuxuu ka kooban yahay ilaa 26 degmo ama waxa loo yaqaan canton, kuwaasoo leh sharciyo u gaar ah. sidoo kale canton walba wuxuu leeyahay baarlamaan iyo xukuumad u gaar ah. dowladda dhexe waxay leedahay awood xadidan, inta badan cantonadu ayaga ayaa ismaamula oo umuurahooda go'aamiya. sanad walbana madaxweyne ayuu yeeshaa dalkan oo astaan ah. oo Switzerland ma lahan madaxweyne awood badan, balse waxay leedahay 7 xubnood oo waddanka xukuma. xilka madaxweyne ayayna isku badbedelaan, oo midkood ayaa sanadkiiba noqda madaxweyne. marka la gaaro bisha December ee sanad walba, dalkan wuxuu yeeshaa madaxweyne. Mareykanka waa dalkii ugu horeeyay ee si buuxda ugu dhaqma nidaamka federaalka, wuxuuna nidaamkan haystaa tan iyo 1787. nidaamka federaalka wuxuu si fiican u shaqeeyaa marka la helo dastuur adag
wadatashi iyo garsoor madax bannaan. Soomaaliya waxay sheegataa inay tahay dal federaal ah, balse ma jirto dawlad dhexe oo awood buuxda leh, kamana shaqayso dhammaan dalka. Waa nidaam federaal oo aan dhamaystirnayn, isla markaana shacabku aysan dooran. Adigu sidee u aragtaa? Nidaamka federaal ma ku habboon yahay Soomaaliya?